halkan waxaan maanta ku helay nasiib aad iyo aad u qaali ah. habaryartay inaabtiday mar anaa habaryar u ah mar yada habaryari ah mar labada dhinacba ilmaabti baanu ka nahay. qof aan aad u jeclahay, aad u qadariyo, aad u qiimeeyo, one of my role models ah, Fosia Xaashi oo ah qof maasha Allah cajiib ah. marka runtii nasiib fiicanna u yeelatay dee waqtigan xaadirka lagu jiro guurarkii waxaad moodaa inay iska soo gabaabsi iska soo noqdeen, laakiin ilaahay ha isu daayee guurkeedii disfaar shaqeynayo 30+ years. marka maadaama aan baryahan raadiyo dad maaragtay isqaba ila dadkii baaba yaraaday dadkii maaragtay happily marriedkii waa waxaad moodaa inay yar yihiin ama dee dadkii isqabaybe. waxaan nu isugu nimi magaalada Helsinki oo nu shir kasoo wada qayb galay. dabadeetana waa ku dhigaya waxaan ilow ila habaryaray waa inaan kaa wareystaa guur wacan sidee lagu helaa ama waa maxay guur wacani adiga fikradaada ahaan. horta bismillaahi raxmaani raxiim. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ku arko farxiya, inkastoo hawada aan iska naqaanay, inkastoo aan aad u jeclahay inaan ku dhagaysto oo aad wehel iigu tahay qurbahan aan joogo. haddana farxadayda lama qiyaasi karo maanta inaan meel wada fadhino oo wada sheekeysano. waana guushii aan ka gaadhay imashadan aan Finland imay. dadkii aan ku riyoon jiray oo aan la kulmay baad ka mid tahay. taas oo marka ugu horeysa. ta labaad aad iyo aad baan kugu mahadnaqaya inaad fursadaas isiisay inaanu ka hadalno wax aad iyo aad qoysaska Soomaaliyeed oo qurbaha jooga muhiim u ah, oo ay ka mid tahay dhibaatooyinka naga haysta qurbaha, qoysaskii ku burburay sababtu maxay tahay iyo sida looga bixi karo dhibaatadaas. haddaan ka sheekeeyo guurka wanaagsan waa maxay, waxaan noqonayaa dee qof iska riyoonaya, laakiin waxaan ka sheegi karaa saan anigu u arko shakhsiyan. waana dhici kartaa hablaha kale iyo ragga kale dhegaysanaya maanta inay iyagu si kale u arkaan. anigu kolleyba guurka saxda ah ee raaga ee lagu liibaano, waxaa jira guur badan oo raagay oo haddana intii la wada joogay aanay xataa cimrigoodu ahayn badh intaa la tirsanayo. waxaa jooga naago 30 sanadood la qabay, haddana intii lala joogay aanay 10 sanadoodba ahayn, oo inta badan ninku iska maqnaa, gabadhuna iyadu hawsheeda qabsan jirtay. laakiin dadku ay u haystaan guur wanaagsan sababta lama furin gabadhii, laakiin dhibaatada gabadha guurkaas ka soo gaadhay iyo qalbi jabka ka soo gaadhay aanay cidina ka hadlin. marka waxay noqonaysaa istus la istusaya mujtamaca inaan dadku isqabaan. waa lay qabaa waa qaan arrinkaas hablo badan baaba ka baqaya inay xataa hadlaan oo yidhaahdaan war waxaan anagu kuma jiri karno, oo ay isleedahay waxaan dhaamaa garoob. taasna waxay ka mid tahay sida la isugu joogsanayo, qof walba qofka kale ku joogsanayo. laakiin guurka saxda ah ani horta waxaan u haystaa inuu ka bilaabmayo horta inuu qofku isagu iska bilaabo daacadnimo. sababtaan u guursanaya maxay tahay? inta badan Soomaali waxaan u guursanaa waqtigii guurkaa la joogaa. gabadha waxa lagu soo barbaariya waqti baa kugu socda, taasaa keenaysa inay istuurto oo ninka ugu horeeya dee reerka u yimaadee dalbada inay iska raacdo ay leedahay khoshi ilaahay jeexna hadda ay gisiiyo. taasuna waa qaladka ugu horeeya. sababta guurkii baad qalad ku bilowday, waxaad ku bilowday ubad. guurku waa ubad keliya ma aha, waa wax ka weyn ubadka. labadan qof ay isu imanaya dee markay isu yimaadeen ubadba meesha kuma jirin, cidina ma haysan garantii inaa ubad aruurtii imanayso, cidina ma haysan. waa laba qof oo waaweyn oo isfahmay oo dalbaday inay meel shuraako ku noqdaan. ta labaad waa ereyga shuraakada ah. gabadha waa inay qalbigeeda gelisaa dhismaha guriga waxbaan ku leeyahay, ee aanay ahayn guriga ninkaa leh wuxuu isagu rabo ayaa laygu maamulaya. sababta way sameyn kartaa waa istusnimo, waqti gaaban markay socoto way daalaysaa, wixiina ilaalin mayso oo waxay iyadu leedahay ma noqonayo. laakiin labada qof markay labaduba dareemaan inay waxaan shuraako ku yihiin oo qof walba qofka kale ka ilaaliyo culaysku inuu isaga ku bato, noloshu way soconaysaa. taasuna waxay keenaysaa iyadana meesha inay soo gasho doorka ninku leeyahay iyo doorka naagtu leedahay inaa laysu caddeeyo. waxaa jira matalan rag ilaahay wax siiyey oo maskaxdooda ku haysta inay guursadaan gabadh guri jooga,
ninkaasoo kale waxaan rabaa inaan weydiiyo maxaa kuu geystay gabadh wax baratay oo shaqaysata inaad shukaansatid waay markaagii horeba aimkaagu wuxuu ahaa gabadh guri joog ah oo guriga joogta oo shaqada adigu ma rabtid markaa gabadh shaqaysata markaad aad shukaansatid ama aad reerkooda ka doonatid de qof khiyaamo ku bilaabay guurkii baad noqonaysaa sababta hadafkaad adigu u socota gabadha ee magaalada ka bidhaamaysa ee shaqaysata ee reerkeeda u shaqaysa ee caawinta ee mas-uulka ah inaad mas-uuliyaddii ka qaadid oo guri ku xidhid ay noqoto xaaskayga keliya taasuna waa qalad haddaanad run oo daacad ka ahayn oo aanad sii sheegin markaa haddaad kusii heshiisaan haddii kugu raacdo inay waxaasoo dhan iska daynayso oo guri kuu joogayso adiga biil kaa sugayso iyo waxaad reerka u keentid de qalad maaha waxay ka noqonaysaa daacadnimada iyo waxa marka hore lagu heshiiyey laakiin waa inaanad ku gelin guur gabadhi waa guri joog haddaad saa tahayna markaaga horeba gabadh aan raadinayn shaqo waa inaad raadsataa shimbirba shimbirkiisa ha raadsado aada iyo aad baan la yaabaa guurka ku burburaa waa shaqaysanaya ninkii ma rabo inaan shaqaysto su-aasha waxaan weydiiyaa oo markii hore markaad isu timaadeen miyaan idin su-aalkaa is weydiin gabdhaha ku galana maya marka hore waa okay aan iska guursado hadhow anaa ka dhaadhicinaya ma jiro wax la yidhaho hadhow sababta markaad ogolaatay xaq baad siisay ninka maalinta aad war kale keentid ninkii xaqiisii aad adigu siisay ayaad rabtaa inaad ka siibtid mana ogolaanayo markaa horta khiyaamada lagu bilaabo guurka waa qalad labada qofba waa inay markooda hore ay ku heshiiyaan anigu maxaan la imanayaa guurka oo ku darayaa iyo maxaan anigu adiga kaa filanaya waa in qorshe jiraa guurku filin hindi laysu saaro maaha filimku u dhammaan riya iyo hablo badan baan arkay asxaabtayda ha noqoto ama bii-adan ku dhex noolahay iyo bulshadan ku dhex noolahay mid walba gabadh walba waxay ku leedahay ninku maalimuhu aan isbaranayna cirka dhexdiisu geeyay dhulka waa iga qaaday waxaad rabtid waa okay bay ahayd wax diidi maayo maxaad jeceshahay waa loo heesayaa hadiyadii baa la keenayaa waa la dul taagan yahay waa la sii kaxaynaya waa la soo kaxaynaya asxaabteeda raalli baa laga yahay maalintuu guursado wixii oo dhan buu goynaya daruuraha inta la geeyo daruuraha gabadhii guri buu u yeelay inankii wuxuu ku leeyahay dee waaba guursadaya sidii inuu abaal u sameeyey ay weligeed inay ku tiraado thank you subaxdii habeenkii markay soo kacta baad tiraado mahadsanid xaaskaagaad iga dhigtay taasna waa unfair maxay tahay mahadsanid xaaskaagaad iga dhigtay qof bani aadam oo jira oo joogta ayay ahayd wayna ahaanaysaa adigana ixtiraam baa lagaa mudan yahay oo inaad doorkaagii hooyanimada inuu meeshii kusoo kordhay adaaba ogba mas-uuliyadda iyo xilka kaa soo saaray adaana og shaqadii aad banaanka ka shaqaynaysay iyo xaasnimadii ma isku wadi kartaa mise maya laakiin dumarku inta badan waxay jecel yihiin arrinta inay iyaga kasoo go'do oo iyadu tiraahdo isku wadi labadii isku wadi waaye annaga qurba joog haddaanu nahay weliba dad nordanka ku nool oo ah Sweden, Denmark, Norway dee gabadh laguu keenayo guriga kaaga shaqaynaysaa ma laha intaad 8 saacadood soo shaqaysid ayaad haddana u imanaysaa gurigii oo ku sugaya dadkii weli aan qadayn haddana 4-5 saacadood oo kale oo shaqo aad gelaysaa marka cadaalad darro weeyaan inaa adigiyo ninkii oo soo wada shaqeeyay labadiinni oo guriga yimaado inuu isagu intuu albaabka ka soo galo telefisyoonka shitaa oo jarnaalka la soo baxaa oo sugaya qadadii goormaad ku tuuraysaa weliba kaa sugaya carruurta aamusi waxbaa maqli weynaye marka carruurtii adaa leh madbikii adaa leh shaqadii banaanka adaa leh hadhowna inaad noqoto xaas adaa lagaa sugaya weliba inaad udgoonaato oo qurux badnaato oo maaragtay yani wax walboo lagaa doono superwoman qof 14 saacadood oo shaqo ah oo shaqo adag ah in laga sugo qurux iyo shacni iyo naxariis iyo qosol waxaan u malaynaya ninka intaas sugaa something wrong with him maskaxdiisa ayaa waxa ay si ka tahay waxaa wanaagsanada baabka marka laga soo galo oo labadii qofba ay soo shaqeeyeen oo soo daaleen inta badanna u fiirso ninku intaas isagu gaari leeyahay iyaduna ay public transport ay raacdaan markii gurigii la yimaado in hawshii guriga kala qaybsado
caruurtii haddii laga keenay kindergartenkii caruurta waxay u baahan dharkii in laga dhigo, waxaa loo baahaya in loo qobeeyo, waxaa loo baahaya in la fadhiisiiyo iyaga marka hore qadadooda la siiyo, inuu isagu wuxuu ka qaban karo oo isagana ka gacan geysto si ay hawshu mar kaliya u wada dhamaato, labadiina isu soo ay waqti isu helaan ay wada sheekaysan karaan. ta labaad gabadhu haddaanay maalintii hore hadlin, maalintii labaad hadlin, qalbigeeda waxay ku qaadanaysaa cadownimo aanay afka soo marin karin, laakiin qalbigii ka buuxda intaa way daawanaysa, isagii waa fadhiyaa, anigana halkan ku jira maxaa dhacay. haddii hadhowna dhaqaalo laga hadlayo iyo wixii reerka soo galay, wuxuu rabaa inuu maamulo, wuxuu rabaa inuu every single penny soo galo. maalinta ugu horeysa hadday xoogaa lacaga ay bixiso, waxaad arkaysaa ninkii inuu diiqadooday ama uu bilaabay swedi oo bishan maxaa dhacay, lacagtii arkay tagtay, ma ayuutaa la galay. ayuutooda wax ceeba maaha, ayuutooda waa xaq dumarku leeyihiin. mar hadday iyadii shaqaysatay, iyada lafteeda waxay rabtaa inay dahabkeeda iibsato, inay cadarkeeda iibsato, inay labiskeeda iibsato. maalin walbay ninka u taagto oo tirahdo lacag isii, waxaasaan samaysanaya. dee waa farxuma qof shaqeeya oo wax baryaya. faamiligu waa inay wada fadhiistaan, dhaqaala faamiliya la sameeyaa, maxaa adiga kaa go-a, maxaa aniga kaa go-a, waxaas halkaa soo dhigo, taasna adaa leh, taasna anaa leh, tanna inagaa leh. ha tanna waa wixii naga dhexeeyey, waa faamiligayagii. caruur baa meeshii imanaysa, iskuullaa imanaya, jaamacadaa imanaya. wadamadan aan joogno jaamacadahooda bilaash maaha, waa lacag, waa in loo sii dhigaa lacagtooda ay hadhow jaamacadaha ku tagayaan ee wax baranayaan. ma aha in la yidhaahdo waa la isticmaalaya. iyo Soomaaliya guri lagaga soo dhisaya, iyo xaaska loo leeyahay lacagtii caruurta loogu talagalayay iyo wixii in la yidhaahdo ha lagu biiro reer kale oo meel kala jooga. taasna waxay imanaysaa gurigu inuu burburo. sababta qoftii dumara maxaa iga galay aniga, xaaska cusub ay soo kordhay, ninkan mushahaartiisa iyo wuxuu soo qaato annagaba nagama badna. anigu intaan soo sheegtago bilaabi maayo hadal been iyo sheeko aan wax ka jirin, iyo lacagtii baa nagu yaraatay iyo halii soo kordhiyo. aniga ninkan ma hadduu shaqo labaad gelayo, isaga naftiisa culays kalaa saarmaya. anay iga go-an tahay mar walba kor iyo hoosma, ama dhaqaala ha noqoto ama effortkii uu ninkaasi kusoo kordhinayay reerka. marka dhibaatooyinku way iska badan tahay. guurka Yurub joogaana ama western countryga wuu ka duwan yahay guurkii waddankayaga. annagu hadda dumarka oo dhan waa wada baxaan, maaha ta shaqayso keliya. ta aan shaqayn, aan wax qorin, aan wax aqrin, iskuul baa loo diray inay wax barato. saacadihii in la eg bay iyaduba baxaysaa, yaanayba lacag keenin, laakiin way baxaysaa. markay soo noqotona uurkii, wallacii, dhalmadii, guriga ka shaqayskiisii, hadday markay timi caruur kala wadatay, waxaasoo dhan iyadaa lagaga tegay. dad baa odhanaya oo haddaanay shaqo tegayn maxay u baxay ma iska joogto, dadka Soomaaliya ka daawanayo kale ama meelo kale. waxaad sharaxdaa sababta aan loogu ogolayn inay guriga iska fadhido maadaama ay dawladdu kabto ama wax siiso. arrintaas oo aad baan ugu faraxsanahay inaad weydiisay, laana waxay soo gelaysaa shaqadayda. anigu waxaan ka shaqeeyaa xafiiska qaxootiga, faamiliyaasha. marmar waan dhoofaa, interview-wadan kasoo qaada banaanka, marmarna anaa qaabila guryahaan sii diyaarina, alaabtaan usii dhignaa. marka waddankana aanu nimi sharci baa ka jira, sharcigiisa marnaba lagama bixi karo. iyaga laftoodii sanad walba waxbay sii baranayaan. dadku waa inay isweydiiyaan sababta lanoo qaabilo, maxay naga rabaan. ma waxay rabaan dawladahanu qorshahooda ay noo rabaan kaalay oo cuno cabba oo seexda oo annaga cimrigiina inta ka hadhay idin biilayna, oo weliba waxaan idin siinaynaa lacagaad ka dhooftaano, dadkiinii waddankiinii jooga aad wax ka siisaano, dahab iyo waxaad doonaysaan iyo guryo ka dhisasaan. qorshuhu saas maaha. qorshuhu dawladdu waxay ku caawinaysaa waqti gaaban, lacagta lagu siinaya waa lacag xadidan. sida loo xadidana guddi baa sanad walba fadhiista, 2 sanadood mar. suuqaa la galaa, waxaa la qiyaasaa inta ku filan qofka bani aadamka ah, waana nolosha uga hooseysa ama dhexdhexaad baad odhan kartaa. lacagtaas waxaa lagugu talagalay waa guriga ijaarkiisii, waa nalkii aad bixinaysid, waa cuntadaadii, cunto macquul ah oo anta ugu sarreysana ahayn, cudurna kugu dhicin, oo matalan vitaminkii iyo waxaanay kaa maqnayn. intaasaa lagugu talagalay iyo in yaroo labiskaaga ah iyo caafimaadkaaga dhakhtarka ah. lacagtaa marka faamiligu weyn yahay calaa nafar baa loo xisaabiyaa. labada isqaba waa lamaanaha lacag gaaray leeyihiin,
caruurtuna say u kala weyn yihiin ayaa baahidooda loo kala daboolaya lacagta caruurta markaa lacag aabuhu leeyahay uu ku dagaalamo lacagtii caruurta waxaa layga siiyo aad baan uga yaabaa xaasas badan baa aan xaadir u ahaa oo kala tegay oo ninkii dagaal ugu jiro lacag haysiiso oo isagaaba lacag laga rabay aabihii mas-uulka lacagta waxay lay siinaya lacagta caruurta waxay iga siiso de haygu ana qabisa caruurta anaa la lehe waxaan ka dhaadhicin kari waaye markay lacagta ku siiso caruurta maxay ku korinaysaa ilaan dawladana waa amaana muslimna waanu nidhaahnaa ogow muslim caruurtaas waxaa lagaaga dhigay dhaqaalahoodana mas-uul ka tihi waxaa lagu siiyay dhaqaalo yar oo iyaga keliya ku filan cuntadooda ciyaarahooda dalxiiskooda waana lagugu dul ilaalinaya dawladdu caruurtaas waa kugu dul ilaalinaysa lana waa under age adaa mas-uulka hadday wax yar dareemaan inay meesha ka maqan tahay waxaa imanaysa hay-adan xuquuqda caruurta baxar baad gelaysaa markaa shilinka markaa laga khiyaameeyo caruurta ee laga qaado 200 ha noqdo wax ka badan ha noqdo way tabayaan caruurtaasi oo meel buu ka go-an yahay Soomaaliya may waba qiyaasnayba marka lacagta la qiyaasayo saan kuu sheegay 2 sanadoodba mar suuqa la gelaya waxa la eegayaa matalan kabaha kubadda lagu ciyaaro sanadka maanta kuwa caadiga ah ee qofku gashan karo lacagta waa intee waa la qiyaasayaa dharka sportska waa intee cuntaday u baahan yihiin waa intee meelaha dalxiiska caruurta laga galo intay ku kaliftaa wixii waa dad baa ka soo shaqaynaya odhanaya waa inaanay intaa ka hooseyn marka aabihii ku dagaalamaya lacagta caruurta waxaa layga siiyo maskaxdeeda waxay ii geli weyday muxuu uga jeedaa say caruurta lacagtooda lagu siiyaa muslim baanu nahay amaanadaanu noqonay dawladanu lacagta gacanta kugu shubtay waa amaano inaad saas iyo saas iyo saas u isticmaashaa waa isagii looga baahnaa inuu kaba waliba ugu sii daro ila isaga dhalay waxaa laga rabaa inaad wad ogtay kuwan waa intii ugu yaray labada waalid inay ku dadaalaan say u shaqayn lahaayeen oo sare uga soo kici lahaayeen oo saboolnimadaas waa sabool nolosha socialka aad maqashid waa saboolnimo waa an cid waliba wax ka sugaysaa ay afrikana wax ka sugaysaa taas matalan wadanka iyaga Norway program baan sameynay programkaas wuxuu socdaa 2 sanadood hadda waa la kordhiyay oo wax la arkay dadkii inaanay isku filnaan 2 sanadood kadib waxaa looga dhigay 3 waxaana la siiyay awood program kale oo ku xiga oo 2 sanadood 5 sanadood gudaheeda waxaa loogu talagalay qofkii aan wax akhrin oo wax qorin oo Europe yimi in isku filnaado qofkii wax bartay 2 sanadood kadib in isku filnaado haddii imtixaankaas yara adkaatay ama cudur ku soo baxay 3 sanadood dawladdu intaasay naga filanaysaa marka aad ba waxa ugu dhibooda dadka isle lacagtaas way iska soconaysaa mar walba lacagtaas ma soconayso mar walba xisaab baa imanaya kadeed bay ku gelayaan 2 sanadood hore subax walba waa inaad timaado 8 saacadood sidii inaad shaqaynaysay school baa lagu geenaya rab ama harabin haddaad diidid wax walba lagaa goynaya waa lagu dabagelaya waa lagu cadaadinaya halkaasa lagaaga bilaabaya hooyo xun baa tahay saad caruurta aad wadanka ugu korinaysaa intee baad naga sugaysa turjumaan inaanu keeno turjumaanka saacadii ugu yaraan waa $80 meesha aad u jeesatid ba haddaad tirahdid turjumaan hayga horeeyo dee wadankii waxaabad gelinaysaan kambiyaale baad gelinaysaan wadankii qofku markaa realityga inuu maskaxdiisa ogaado ayaa isaga u fiican oo uu ku tashado sida ugu dhaqsada badan inta weli la jecel yahay weli dawladdu ay daba taaganta wax ii hayso aan ka baxo ama farsamo aan barto ama iskuul iyo jaamacado aan anagu isku filnaado aan ka baxo taasna dhibaato weyn bay keentay hooyo la leeyahay ha tegin hal hooyooyinkii markaa waxay keeneen sanad walba waa dhalaya lacagtaan dhalmada qaadanaya sanadka kale mid kalaan dhalaya si aanan u bixin oo aan meel la ii darin iyada lafteeda waxaad isku soo jeedinaysaa bulshadii wadanka sababta sanad walba marka aad dhashid caafimaad ahaan kuma wanaagsana dhabar xanuun wadankan waa wadamo barafa cudurro gaaray leeyihiin aan wadanka iyagii hore lahayn keligaa waad tahay cid caruurtii kula haysa ma laha gurigaasaad ku xidhnaanaysa dhalmada wadanka iyaga iyo dhalmada Yurub aad bay u kala duwan tahay nooc walba caafimaad waxaa loo haystaa inaan anagu halka wanaagsan oo dhakhtarra haysano ibaar iyo dhakhtarra ku ilaaliya iyo waxa aan haysano laakiin nafsiyan maskaxiyan dhalmada halkan waad ku burburaysaa
hadda waddanka yaga dhalmada aad qiimo ku yeelatid gabadhii uurka lahayd jiiraanka wax kuu soo diray cunto yar gabadhii walla ahayd cuntada guriga lagu koriyo waa u uraysaa halkan ma jirto waxaa adoo keligaaya caruurtaadana waanaad wax karaysaa hadhowna ma tagtaa oo masqusha gashaa haddana soo baxdaa oo karisaa ninkii kula joogay guriga haddaan waxoogaa kaa nixin oo aanu bilaabin inuu barto cuntada sida loo kariyo soo caruurtiisii u baahi tiro dee hawshii adiga waa kugu badnaanaysaa talabaad cadaawo qarsoon baad qaadaysaa cadaawadnimadu maogtahay waa tartiib bay u timaadaa wixii oo dhan waxaad arkaysaa ninkii aad isku hadlaysay ee ninkaaga ahaa ee jeexaaga midig ahaa ee kaa welweli lahaa ee adiga yani saxarka kaa ilaalin lahaa oo aad dadkaaga iyo aabaha iyo hooyada iyo tolka iyo gacalka aad uga soo baxday oo isaga aad soo raacday inuu cadow meel kuu fadhiyaba yahay taasaa waxay keenaysaa wax yar hadday dhacaan reerkii inuu kala fadhido weliba aad u timi mujtamac dadku iscaawiyaan oo lamaane dhaba yihiin shirkad team soo maha taasina way sii durkinay cadaawada because waxaad arkaysaa ninkii caddaa ama ninkii dee ajnabiga ahaa ee dadkaad u timaadeen oo gabadhiisiisa u kolkoliya baybigii isagu xambaarsan baybigii gacanta ku sida bahalkii kursigii ku sida oo isagu sida muxuu ahaa iskuulkii labadoodii oo wada taagan wax walba taabalka waxyaalaha ugu badan ee hablaha soomaaliyeed qalbi jabka ku riday waxay tahay raggii oo booskoodii ka baxay mutacallin ha noqdo ama mutacallin yaanu noqon communitygu way ogyihiin shirarka iskuullada rag faraku-tiris ah ayaa yimaada inta badan waxaa imanaya hooyooyin aan luqadii waddanka fahmin caruurtii yaryareed laftooda laga rabaa inay turjumaan adigu bal eeg booskii hooyadii dhammayd ee afkeeda maasha allah ku ahayd ee hadli jirtay ee sheekeyn jirtay caruurteeda difaaci jirtay waxaasoo dhan inta laga siibay haddana ninkiioo guriga jooga uu ku yidhaahdo orod shirkii caruurta yani caqliyadda baan fahmi kari waayaa ninkaas fadhi ku dirirka ragga la fadhiyo sheekaysanaya qoftan uu dirayo wuu ogyahay inaanay awooddaas lahaynba muxuu isku hadlaynayaa marmar su-aal baa maskaxdeeda kusoo dhacda oo aan idhaahaa ninka soomaaliyeed doorka uu ogol yahay uu faamiligiisa u qaban karaa waa maxay horta sideedaba maxay tahay cajiib hablihii waxay keeneen inay iyagu iscaawiyaan laba jaara waxaad arkaysaa labadii dumar oo iscaawinayso caruurtii oo dhan isku hayso ku leedahay heblaayo dhakhtar bay tagto waan usii hayaa oo aaway ninkii wuu hurdaa muxuu hurdaa wuxuu hurdaa ama shaqadaasuu habeen qabtaa ama waxaasuu habeen qabtaa and so what hadduu habeen qabanayo saacad ma soo kici karo caruurtiisa ma hayn karo dadkoo dhan habeen bay shaqeeyaan maalin baa la shaqeeya galin dan baa la shaqeeya galin ma arkin anu qof odhanaya anigu waa hurdaya adigiina dhakhtarka tag hadhowna suuqa soo maro adeeg anigu waa hurdaa qadadana kari aan cunaya intaanan tegin waaba kii dhakhtarka u raaci lahaabe waxaa la yaabsan maba jiraba dhakhtarada horta dumarka gynecologiska iyo meelahaas iyo waxbad iyo dhifnin raacaya naagtu keligeed ay tegaysaa turjumaan ii qabta ama gabar saaxiibadeeda odhanaysa maanta dhakhtar baan haya waan baqayaa iraac garab ma jiro garab xafiisyada shaqada aan ka shaqeeyo su-aalka mar walba hablaha ila shaqeeya ama nimanka ila shaqeeya lay weydiiyo waxay tahay aaway raggiini aaway raggii talabaad maxaa u dhashaan idinku sanad walba maxaad u dhalaysaa markay tiraado maya keligay baanahay saasaanahay waxaa la yidhaha okay dhalmada jooji markaa kugu filan intaad haysatid kuwanaaba kugu badan awood uma haysid intaa in ka badan inaad dhashid haddaad da isku filan tahay dhal 10 iyo 20 dhal anaga waxba nagama gelin mayso adigu baahiyaanay kaa muuqan caruurta baahitar adiga naftaada isbaahitar hawshii bulshadu kaa sugaysayna ka soo bax hawsha bulshada aanu u nimi ay naga sugayaan ciyaar iyo kaftan ma gasho hadday gashana dee caruurtii baa khatar gelaysa caruurtii kubad bay rabaan haddaanad activity galabtii aanad u dirin oo waa la weydiinaya subaxdii iskuulka markay yimaadaan xalayto maxaad samayseen waxbana gurigaanu fadhinay oo maxaad samaysaan markaad guriga fadhidaan buug ma akhrisaan
ciyaaro caruurta lagu maaweeliyo ma samaysaan maya mobiiladaan la wada fadhinaa activityga caruurta yani 3 jirka 4 jirka waxaad arkaysaa ipad loo dhiibayo indhihii ay 24 saacadood wixii buu haya ama telefisyon baa noo kariya برنامجي شلت وسجله nooga sharxay yani cimriga ugu wanaagsan ee caruurta maskaxdooda la kobciyo caruurta iyada Soomaaliyeed boqolkiiba 90 baan oran karaa telefisyon baa koriya hooyadii kii horena waa saqiir kursigaas ay ku xiraysaa telefisyoonka ku sii jeedinaysaa waa u shiraysaa waa dhaawaca ugu weyn ee maskaxda caruurta yar under 2 years ku dhaca iyadii waxay rabtaa inay ka faa'iidantu inankiisa ugu dheegado saqiirkii iyadu shaqayso oo guriga hawshiisii soo dhamayso ama mid baa fadhiya kii kalena dhabarkuuba ugu xidhan yahay marka hablihii waxaa ku dhacay culays fooq alxad ay qaadi kari waayaan iyo lagugu dul hadlayo 24 hours waa maxay waxaan caruurtii miyaan seexan miya waxaan aqaanaa rag intaanay guriga iman telefoon iska soo horreysiiya caruurtii ma seexdeen وكله background كتليفون كاسي دغيستا راوند كلا سو قادن انت عروت سيحينيسو عروت هذه ماها سبحان الله يعني وحياله عجيبه ايانو لكلنا oo aad uga fog guurkii saxda ahaayeen marka resultku maxay imanaysaa ila kala yaaco in cadaawo la isu noqdo inuu ninkii karaahiyeysto gurigiisii inay naagti diidaba xataa inay la hadashaba tada wax faa'iido ma laha waxaan kala hadlaya hay dhaafo rays baabu igu hayaa waa bay necab yahay ha waxna ila qaban maayo waxna iga tiirin maayo hadana 24 saacadood lacag buu igu haystaa dhibaato lacag baa gurigii taala keligay wax ma go'aamin karo waa la weydiinaya intaad u dirtay intaad keentay yaad wax siisay waxa la ila dhaqmaya sida caruur yaro aan weligeed lacag arag aan waxbana aqoon taladan wuxuu rabaa keligiis inuu gooyo taasi markaas saameyn ma ku yeelanaysaa gabdhihii dhalinyarada ahaa ee arkayay aabahood iyo hooyadood sida ay wada dhaqmayaan iyo darisyadoodii iyo gabdhihii kale asxaabta la ahaayeen iyagana oo same problem dhibaatada iyada haysataa ay wada haysato inay markaa communitygoodii iyo raggoodii iyaguba markay wax bartaan ay ka fiigaan taas waa dhibaatada haddan haysata hada qurbahan waxaan soo galnay Yurubtan ilaa 35 sanadood waxa ay u badan yihiin hooyooyin keligood caruurtii korsaday ama hala qabo ha laga maqnaado talaaba baad dhaantaa talala joogo wali magaciibaad sidaa ama keligeed haba korsataba hablihii waxay ku soo koreen iyo inamadii hawadaas iyo jawigaas aan caadi ahayn iskuulkay tagaan waxay arkaan asxaabtooda aabahooda gaadhiga ku keenay hooyadooda hadhow gaadhi wadato imanayso qaadaysa wax walbay iibsanayaan wax walbay rabaan wax walbay helayaan labadii waalid waa wada shaqaystaan qof walba wuxuu ka hadlayaa fasax baa la baxayaa gaaban meel baa la tegayaa iyaga 24 saacadood qolkaasay ku xidhan yihiin caruurtii markaa qalbi jab haddana waa aamusan yihiin waxa kaliya ay barteen farqa u dhaxeeya markay Soomaali yihiin iyo markay wax kale yihiin ama Norwegian ama Swedish ama riyadoodu markaa gabadh walba inaanay gursanin sidii abaheed ay gursato nin sidii ninka saaxiibadeed Swedishka da jecesha maxay u jeceshahay nin la shaqeeya nin mutacallima subaxdii ka laha nin gurigii ka caawiya nin kitchenkii la gala nin aan u arkin shaqada guriga inaan waa kuu sameeyay eraygan mar walba ka dagaalamo matalan buu ka soo horeeyay wax buu ku qabtay shaqo ku qabtay inuu ku yiraahdo maanta waa taas cuntadii baan idin kariyay ama heblaaye maanta de fadhigii waa ka xaqay waa eray aad u xun maxaa iga xaqay anigu fadhiga waa wada leenahay annaga noo xaqday family-gaad u xaqday family-gaad cuntada u karisay anigu miyaan hurday markaad adigu cuntada karinaysay maya waa maqnaa shaqan ku maqnaa hawl aan lacag ku keenayo family-ga soo faa'iidadiisa ay soo gaadhaysaan ku maqnaa marka maxaa igu leedahay adaan kuu sameeyey waanu isu samaynay haddii kale aan guri joog baan noqonayaa shaqadayda maaha inaan reerkan biilo shaqadayda maaha aniga caruurtayda iyo gurigayga subaxdii baan kacayaa gurigan waa nadiifinaya caruurtayda meeshaan geenaya waa soo noqonaya cilaankaygan marsanaya barkimadaan dheeranaya wax walbana adaan kaa rabaa ka waran hadday dumarku saa sameeyaan taasuna ma soconayso sababta reerkii baa wada burburaya يعني نينكاسو كليجيس هرتا ما بكفر جرين كرو
maba baahin tiri karo familiga qaar baaba markiisaa lagu sameeyey shaqooyinkii ka tegay ha standardku cirku maraya noloshii aanu u baahannahay ilaan mar walba waxaad la jaan qaadaysaa meeshaad joogtid fadhi caruurtii waxay u baahan yihiin markay yaro weynaadaan qolalkooda waxay u tegaysaa gabadhii norwegianka ahayd ama gabadhii soomaaliyeed waalidkooda wada shaqaysteena guri wanaagsan degan way ku soo noqon kartaa hooyo waay anigu aan waayay qolkayda waay qol aan 4 ugu seexana daaqadaa yaray ku jirto cudurkaabaan kala qaadaynaa sababtu maxay tahay dhaqaalihii reerka ayaan markii hore lagu salayn dhalmada ilaahay subxaanahu wa tacaala ubadku waa calaf jacaylku waa calaf waa irsaaqa rabbaaniya laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuuna siiyey caqli aan wax ku miisaano ubadku waa barako laakiin haddaanad awoodooda hayn caruurtaad dhaawacsa ilaahay baa irsaaqada keenaya waa ognahay wax walba ilaahay baa keena laakiin ilaahay meel guuraa u maratay لعلكم تعقلون بنير عقلي بالو بهي وحنا تكون ميسانتد عافيماتك أدو تعبان أو تدبق أرورة هيستا أو بقول عذر كوكو صبحي أو ماني والبدختر دحتاجن وحقاد أورو قادة يسد أما أورادين يسد بقى ده وحنا مالين يا وقت ودعي كرتا أدو تحدر كاجي أردم ودا شيء أمر الله إنه كوي ماتا مركاسنا ومر أدو أكتاي نكابو إنه كقرب تاجين أو فاملو ay iyagoo oo dhan raali ka yihiin oo aad ka helaysid qofku caawiya laakiin markay iswada la eg yihiin oo qof walba weli isagii u baahan yahay dabagal dhibaato weyn bay noqonaysaa hablihii soomaaliyeed markaa soomaalidu inta badan waxaan ku hadlanaa waay hablihii yurub iyo westernka galay maxay u guursanayaan dad shisheeye ah laakiin isma weydiino habluhu maxay ka cararayaan haddii su-aalka la bedelo oo la isweydiiyo hablaha iyagii yaryaraa maxay ka cararayaan oo ajnabiga ugu ordeen maxay ka heleen feejignaan weyn baan ka heli lahayn debateka oo dhan wuu isbedeli lahaa sababta inamadii laga cararayo waxay ka baxayaan sheekada ah hablihii way kibreen laakiin waxay heli lahaayeen habluhu maxay ka cararayaan maxay nagu diideen maxaa naga maqan tartan bay la geli lahaayeen inamadan gaalada ah ama inamadan aanu ugu nimi wadanka iyo habka nolosha ay xaasaskooda kula noolyihiin isbedel weyn baa yimi wayna timi waa jira hadda inama badanoo marmar ubax keena oo marmar dhala cadara keena iyada lafteeda ilbaxnimadii aan wadankan ugu nimi bay ka mid tahay laakiin ma badna sida la rabo degdega lagu rabo hawshaas inay isbedesho oo bulshada aanu nimi wax la qaybsano iyo habka faamiliyaasha burburku ku dhacayo ayaan islahayn waa in la dedejiya waa in raggu xisaabtamaan waa in dib isugu noqdaan ilaahay subxaanahu wa tacaala aduu mas-uuliyadda ku saaray reerkaagu waxay kaaga baahan yihiin adaa fahmaya adaana la rabaa inaad reerkaas aada badbaadisid oo gabadha xilka iyo mas-uuliyadda reerkoodu farta kaa saareen oo aada wadankeedii kasoo kaxaysatay saad u dhaqan lahayd waa ammaano lagu dhiibay ma aha inaad tidhaahdid waa cararaya soomaaliya tegaya bah kale aan samaysanaya subxaan allah bahda kale maxaa u samaynaysaa kuwii horeba dayacdaya yaad u samayna bahdii horeba dayacdaya markaana de waxa weeyaan foosiyay waxa weeyaan afar baa lay baneeyay ma ilaahay wuxuu yidhi hadalkii ilaahay baad kasoo horjeedaa maya horta wax walba haddaan anagu u bedelno saan anagu rabno oo ka tagno macnaha ilaahay baanu dambi horta iyo qalb ka faafinayna ilaahay subxaana wa tacaala aayadaas waxbaa ka horeeyey waxbaa ka dambeeyey asbaab bay kusoo degtay dad iyo waqti bay kusoo degtay intaasoo dhan waa inaanu tixgelinaa marka lagu yidhi afar lama odhan biilkii tii hore ka qaadoo ta kale sii lamana odhan noloshii ay ku jirtay hoos uga deji oo waxaad tiraahdaa ta kale wax la qaybso naagta kale timaada irsaaqadeeda ay leedahay isagoo haw dabero halkuu uga keenayo laakiin anigu noloshii tii hore ay ku nooleyd waa gardaro in la yidhaahdo waxbaa lagaa bedelayaa sababta biilkalaan leeyahay yani markuu ninkii yurub joogo oo aanu isagu shaqayn reerka biilkooda waa wax xadidan oo la og yahay wuu baxayaa wuu gursanayaa wuu soo noqonayaa xoogaagii yaraa uu la tagay say ku siisayba ilaahay baa og ama isagu uu dabartayba ilaahay baa og gabadh markuu soo gursado ballan buu soo qaadayaa dayn buu dadkii kasoo qaadaya oo gabadhii ku guursaday laiska guursan maaye maalintuu soo noqday inuu yidhaahdo biilkii reerka 200 ama 300 aan diro halayga siiyo de waa xaq darro cad ah
subxaanallah see aniga iigu timaadaa jabkii hore iyo waa lagula guursaday iyo naxdinteedii lagugu sii daro naagtii cusbayd biilkeeda adigu bixi oo lacagta caruurtaada iyo adiga kasoo bixi lacagtaas haddii kale waa lagu furayaa dee deetana marka laysmari waayo dee furinkii baaba imanaya labaa imanaya inay iscaburiso oo iyadu kadeed isku noqoto oo iyadu cudur isku rido oo depression isku rido oo ay ka baqayso in la furo ay ka baqayso in la yidhaaho gabadhii waa la furay hanweynaan ay sii haysatay hebel xaaskiisii weeyaan ayay dulli ugu noolaanaysaa markaasay bahdilmaysaa markaasay isku duba dhacaysaa markaasay nafteedii karaahiyadeynaysaa ilan daacad nafta uma aha daacad waxay ka baqaysaa waxay u noqotay bulshadii daacad oo ay ka baqayso hadalkoodii maya aniga haa hebla maasha allah waa wasabkaa ninkeedii la guursaday fake weeyaan run ma aha waxay ku hadlaysaa qalbigeeda haddii meel ay fadhiisato ilaahay baa og xaaladeedu say tahay dad bay ku raali gelinaysaa inay iyadu isbahdisho markaasay reerkii iyo biilkii reerka iyo masruufkoodii odayga iska sii reerkii kale ilaahay baa ku cadaabi reerka kale 200 ku ekaan maayaan dee 3 bilood intaan ahayn bay naagtii bugtaa walac weeyaan dhakhtar baa la geenayaa 300 bay noqonaysaa 5,000 bay noqonaysaa 1,000 bukaan weeyaan caruurtii waa weynaanaysaa mar walba intaadii yarayd ee aad adigu haysatay halkii lagu kubcin lahaa oo wax lagugu soo dari lahaa waxaad noqonaysaa tii haddana dib ugu noqon dhibaata kugu dhacaysa adigu iyo caruurtaada ma fahmi karaan waayo aabbahay naa kale u guursaday waayo aabbahay caruur kale u dhaldhalaya annagaba naguma filan what's the difference caruurta kale maxay soo kordhinaysaa muxuu nagu sameeyey marka dhibaatooyinkaas in xoog looga hadlo oo la fahmo dhibaatadu halkay ka imanayso dushayaan laga dhayin hoosa looga digo dib waxaan ugu soo noqonaynaa waxaanu nahay nation ku faana soomaalinimada laakiin dhaqanka iyaguna baray been oo ay xal noo noqotay siyaasigu been buu sheegaya odayga qabiilku been buu sheegaya dumarku been bay sheegayaan raggii been bay sheegayaan beentii baa saa u wareegaysa wax saldhigeedu been ku dhisan yahayna habeenkii xalay oo tagay inay hagaagto subxaanallah habeenkii xalay ahaa u tagaan ninku markuu ku guursanayo makuu sheegaya wax makuu sheegaa anigu waxaan rabaa inaan 4 xaas leeyahay ka odhan maayo adaa xuural cayna adaa cirka lagaa soo riday cid kale ma rabo haddaan goelo taas waa been maxaa qalbigeeda u dhaawacaysaa adigu marka hore u sheeg waxaad tiradaa anigu waxaan ahay nin ilaahay wax siiyey xaasas badan baa yeelay ama haddaan xelo anigu xaasas badan baan guursanaya hamigaygu mustaqbalkaygu inaan xaasas badan yeesho macid baa kuu diiday maxaa beenta u sheegaysaa ila marka dambe waxaad tiradaa ilaahay baa ii baneeyey adoo fulinaya oo xaaska kale xuquuqdooda iyo maalkooda iyo waxaad ku biiri lahayd sii diyaarsaday waad u sheegaysaa ilan iyaduba way ku soo gashay way ku ogeyd naxdintu way ka yaraanaysaa laakiin markaad ku tiraahdid adiga mahaana cid kale dunida ma jirto oo 2 sanadood intaanay joogin ama 3 sanadoodba aad la imanaysid mid kale meesha joogta aad la imanaysid waxaasaa dhacaya aad kaga nixisatay jiha wareer yani maskaxdaad ka toogatay naagtii aad bahdishay maskaxda ka toogatay baa waxaad ka filanaysaa ubadkaaga inay kuu koriso weliba aad ka filanaysaa ha igu dirin caruurta xidhiirkayga anigii caruurtayda waa inay ii wanaagsanaataa adigii uunbaa meesha ka baxay yani waa wax cadaaladda ka fog subxaanallah xaqaaga haddaad rabtid xaqa dadka kale waa inaad horta marka hore iska siisaa xaaskaagu xaq bay kugu leedahay sida aad adigu u leedahay xaq 4 inaad guursatid iyaduna xaqa waxay u leedahay inay aragto inay qaxootinimadan ka baxdo inuu ninkeedii u shaqeeyo inuu isagu xilkii gurigiisa la weer yani wax ay naagi ku faanto ninkaygu ma shaqeeyo guri joog buu yahay wax lagu faano maaha de naagtu ninkeeda weynay sare oo eegtaa role modelkeeda nolosheeda u noqdaa caruurtiisana u noqda waxaa intaa u dhaxeeya waa qalbijab bay ku aamusan tahay qalbijabkii baa loogu daraya waa lagula guursanaya weliba subxaanallah